Tercüman önce içeride tercüman. Bay bay. Personel kısmı. Evet arkadaşlar günaydın. Sağ ol. Selamünaleyküm. Good morning. Very welcome. مدن تليها إذا مدى حوق دلك تركيا ولا لها النهاي وزير هذا اللبان هذا هي أذى الدبلوماسية سراكيشة إذا مدى أردن يو إذا مدى مرتدى النوع ماشان قروح بدل النوع نقلش قين دونه وعن مركو ردين سيو جيدنا يا سلام كلي اللعبة وحقن الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركي حكتا halkan aad u jeedaan oo ah kulliyadda lagu tababari doono saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan rabno inaan dib u dhisno. Waa ogsoontiin ciidankeenna waxaa la aasaasay 1960 waxaa laga aasaasay meel cidlo ah waxaa la gaaray meesha aragteen awood fara badan waxaa lagu gaaray dadaal saraakiil iyo mas'uuliin dalka soo maamulay oo aad iyo aad iskaga xil saaray in amniga qaranka uu dhismo maanta waxaan ku jirnaa qaybtii labaad oo aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah iyadoo weliba duruuf adag ay haysato oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amnigaba waxaan ilaahay ka rajaynayaa in mas'uuliyiinteena dhammaan ama mas'uuliyiinteena maamulka dalka ama mas'uuliyiinta ciidamada inuu ilaahay nagu ceebaynin oo aan hore u marno waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dowladda Turkiga saraakiishooda mas'uuliyiintooda danjiraha u fadhiya dalka ninka wakiilka ka ah ciidamada dowladda Turkiga adeeta military attachega aad iyo aad ayaan waxaan ugu mahad celinayaa majhuudka iyo dadaalka ay geliyeen meeshan aad arkaysaan oo quruxda badan halkan ugu yaraan waa 4 kilomitir iyo weliba dheeraad 4 kilomitir hadda dhisan waxay ugu talagaleen 1500 oo joogto ah oo ka kooban saraakiil xigeen iyo dableyba waxay ugu talagaleen in waxa allaale iyo wixii koorso ah ama tababara aan u baahano oo aan dibadaha u raadin jirnay inay halkan noogu diyaariyaan taas waa yacni arrin aan laga heli karin qof kasta qof un walaal ah maahane shu'uunta ama arrimaha siyaasadeed kolley mas-uulkeeni dowladda ra-iisul wasaaraha noo jooga isagaa maaragtay macadayn doono laakiin tallaabooyinka ciidamada ay noo qabteen ilaa inta ay xiriirka aan la yeelanay waa ogsoon tihiinoo rag badan ay noo soo tababareen hadda tababarkeenna iyo dadaalkeenna ay ku jiraan ciidamadan hadda ay tababarayaan wixii ay siin lahaayeen ay ugu talagaleen waa keeneen hadda diyaar waaye
waxaan la soconnaa dad badanaan na caawiyo wax noo tababaro laakiin wuxuu ku leeyahay markii aan tababaro adiga wax u keenso aniga warshad ma lihi waa ogtiin gaadiid uma heli kari qorina uma heli kari laakiin dhibaatooyinka aan qabnay ka mid ahayd dadaa naloo tababarayaa markii la tababaro waa laiska sii daynaya sababtoo ah annaga hawoodu ma lahayn inaan hubayno inaan qalabayno dhaqaalaha waa ogsoontihiin meesha aan ka marayno run ahaantii dowladda turkiga waxaan leenahay yacnii waa in qof kasta uu ogaado qalabka ay siin lahaayeen hadda dadkay noo tababarayaan waa soo dejiyeen hadda waa noo yaallaa meeloo noo yaalla waxaana laka rabaa inaan tababarkeenna si fiican u qaadanno iyo inaan ka faa'iidaysanno marka waxaan leenahay taliyaha xoogga oo dalka turkiga aada iyo aada u mahadsantihiin ciidamadaadane runtii aada iyo aaday u dadaaleen wayna nala shaqeeyeen waana u mahad celinaynaa waxaan jeclahay inaan soo dhoweeyo taliyaha ciidanka turkiga oo iiga dambeyn doono mudana ku soo dhowaaw taliya. Hepinize iyi günler. Hepinizi burada görmekten son derece memnun olduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Saygıdeğer Sayın Başbakan, Ekselansları, Hasani Beyefendi, Sayın Bakan, Sayın Genelkurmay Başkanı, değerli kardeşim Ahmet Cumali ve Sayın Büyükelçim, diplomatik ve askeri misyonun değerli üyeleri, temsilcileri, sizlerle beraberiz. Ve Somali ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli mensupları, değerli arkadaşlarım ve Harp Okulu'nun ve Asubay Okulu'nun kıymetli personeli ve sevgili öğrencileri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başta Sayın Başbakan olmak üzere tüm Somali halkına ve siz değerli katılımcılara, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakanımızın, Türkiye Başbakanı'nın ve Türk halkının ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarının hepinize sağlık, esenlik ve iyi dileklerini iletmekten büyük şeref duyuyorum. Dost ve kardeş Somali'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu bir kez daha burada sizlerin huzurunuzda belirtmek istiyorum. Gerçekten ilk defa geldiğim Somali'de, dün sabah geldiğimiz andan itibaren şu ana kadar gerçekten büyük bir kardeşlik gördük, büyük bir özveri gördük, büyük bir samimiyet gördük. Bundan dolayı ben ve arkadaşlarım son derece etkilenmiş durumdayız. Ve bundan dolayı başta Sayın Genelkurmay Başkanı olmak üzere ev sahibimiz, bütün Somali Başbakanına, Cumhurbaşkanına ve ilgili tüm personele şahsım ve arkadaşlarım adına en samimi duygularla teşekkür etmek istiyorum. Bu arada sözlerime başlamadan diğer konulara geçmeden önce terörist saldırılarında hayatını kaybeden sivil asker tüm Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu acının bir an önce sona ermesini diliyorum. Ve bu konuda birlikte mücadele ederek Somali'yi sağlıklı, güvenli bir noktaya getireceğimize de bütün kalbimle inanıyorum. Afrika kıtası jeostratejik ve jeopolitik konumu sebebiyle küresel güvenliğimiz için büyük önem taşımaktadır. Hepinizin bildiği gibi. Bu çerçevede Afrika boynuzu olarak da bilinen bu bölgede Somali, terörizmle mücadele ve deniz yollarının güvenliği açısından son derece stratejik bir konuma sahiptir. Somali, başta Afrika olmak üzere bölgenin ve İslam dünyasının barış ve istikrarında olumlu katkılar yapabilecek bir ülkedir. Somali'nin güvenlik, barış, huzur ve istikrarı sadece Somali halkına değil, tüm Afrika kıtasının huzur ve refahına katkı sağlayacaktır. Güçlü bir Somali ordusu da Afrika kıtasında yuvalanmış terör örgütleriyle mücadelede çok önemli görevler üstlenebilecektir. Dünyanın neresinde olursak olalım, insan olarak daima birbirimize ihtiyacımız olduğunu unutmayalım. Barışa kavuşamayan bir dünyada yüzümüzün ve gözümüzün rengi ne olursa olsun, her yerde akan insan kanının ve gözyaşlarının renginin aynı olduğunu
hepimiz çok iyi biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, dünyada sulh düsturunu kendisine önemli yol gösterici olarak kabul eden Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın her noktasında barış ve istikrarın hakim olması için önemli sorumluluklar üstlenmiştir, önemli katkılar sağlamıştır. Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın önemli destekçilerinden Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Taliyaha ciidamada Turkiga, taliyaha ciidamada xoogga, safiirada, wasiirada, xildhibaanada, ciidamada kala duwan ee Turkida iyo Soomaalida, marti sharafta, bahda saxaafadda iyo dhammaan dadka halkan isugu yimid iyo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Turkida oo na daawanaya waan idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaas ka sokow taliyaha ciidamada Turkiga halkan martida noogu ah oo u mahad celinayaa safarka dheer uu noogu yimid inuu nala joogay shalay iyo maantay una yimid munaasabadan taariikhiga ah taariikhna ka noqon doonta qayb ka mid ah taariikhda ummadda Soomaaliyeed. waxay ogtahay maanta maalin la isugu imaanaya halkan oo looga hadlayo dib u dhiska ciidamada qalabka sida waa muhiim waana ka hadli doonaa sida ay muhiim u tahay laakiin waxaan rabaa inaan mar kale horta isxasuusino waxaa jirtay waqti dalka Soomaaliyeed uu lahaa ciidamada ugu ballaaran ugu xoogga badan ugu tababarka fiican qaaradda Afrika. waxaa jiray waqti ciidamada Soomaaliyeed sida kuwa walaalaheena maanta ay u joogaan inay nabadda nala ilaaliyaan nabadda nala sugaan loogu diri jiray dalalka dunida si ay nabadda u sugaan. waxaa jirtay waqti ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed loogu yeeri jiray libaaxyada Afrika. markaas iyada waxaa ciidamadaas soo tababaray ama joogay oo madax u ahaa dad Soomaaliyeed. maanta waxaa jooga dad Soomaaliyeed waxaa kaloona jooga walaalaheen badan oo ay Turkidu ugu horeyso oo diyaar u ah inay dib noola dhisaan. waxaan rabnaa inaad ogaataan taariikhdaasna innagaa iska lahayn tii dhibka ahayd oo na soo martana annagaa iska lahayn tan aan rabno tii hore meel ka fiican inaan ku gaarsiino oo maanta aan isugu nimidna annagaa iskale taariikhdeenna ayayna qayb ka tahay. Soomaaliya waa waddan maanta maraya meel dadka Soomaaliyeed ay rajadoodu soo laabatay. waa waddan maanta uu ka muuqdo iftiin. waa waddan maanta shacabkiisa iyo dowladdiisa isku soo dhowaadeen. waa waddan maantay ku socdaa jaranjarooyinka horumarka qaybihiisa ugu horreeyey laakiin tallaabada ugu horreeya u baahan yahay si dalkani uu u gaaro meesha uu rabay inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooniya ka imaan laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed leh tababarkii loogu talagalay u taagan inuu difaaco qarannimada ummadda Soomaaliyeed. dugsigan tababarka waad noo furteenna waxa uu kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna waan idinka mahad celinaynaa. dowladda Soomaaliyeed dhibaatada ugu horeysa maanta oo hortaagan waxaa ka mid ah amni darrada dalka. si amniga loo sugo waa muhiim in ciidan la helo si looga adkaado argagixisada. waa inaan helnaa ciidan Soomaaliyeed oo argagixisada ka adkaan kara si shacabka Soomaaliyeed ay ugu noolaadaan nolol amni ah. laakiin si looga adkaado argagixisada loogama adkaan kara military keliya. waa in la helaa dowlad wanaag
in laga adkaado musuq maasuqa iyo laaluushka waxa ay la mid tahay in laga adkaado argagixisada in dadka Soomaaliyeed ay u siman yihiin xoolaha iyo dhaqaalaha dalka yaalla waxa ay ka mid tahay in lala dagaalamo argagixisada in dalka dib loo dhiso in qofka dhalinyarada oo shaqo u baahan uu shaqo heli karo in qof walba Soomaaliyeed uu aaminsan yahay fursadii uu dalkan ka rabay uu ka heli karaa intuu u qaxi lahaa dalka dibadiisa waa qayb ka mid ah in dalka dib loo dhiso lagana adkaado argagixisada dugsigan tababarka wuxuu noo yahay muhiim waayo waa tallaabo muuqata dhismahan meeshan ku yaala oo dad walaalaheena ay yimaadeen ay noo dhiseen ay diyaarna u yihiin inay noogu tababaraan ciidamadeenna oo qaybtii ugu horreysay halkan ay fadhiyaan iyagoo kulligood sida uu og yahay safiirka Turkigu ay yihiin dad Soomaaliyeed oo ka kala yimid dhulka Soomaaliyeed oo dhan inay yihiin ciidan Soomaaliyeed oo ka kala yimid inta u dhaxaysa Lowcadde iyo Raskamboni inay tahay tallaabo cusub oo muujinaysa in dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin inay ka adkaadaan argagixisada haddii la yiraahdo waxaan rabaa markii inaan uga mahad celiyo dawladda Turkiga arrinkan laakiin shacabka Soomaaliyeed way qirayaan in dugsigan uu yahay dugsiga tababarka ugu weyn oo dawladda Turkiga ay ku leedahay meel dalkeeda ka baxsan in dawladda Turkiga safaaradeeda ugu weyn dunida ay tahay safaaradda Soomaaliya ku taallay halkan ay ka dhistaan waliba ay ka dhistaan waqtigii dalku ugu xasiloonida darnaa iyadoo madaxweynaha Turkiga madaxweyne Erdogan oo isagu halkan yimid dhowr jeer waa waxaan ognahay kuna yaala qalbiga ummadda Soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinaynaa waxa kaloon idin ballan qaadaynaa inaan idinkala shaqeynayno sidii dugsigan ku najixi lahaa waxaan kala shaqeynaynaa sida idinkuba diyaar ugu tihiin inaad dalka nala dhistaan inaan annagu qaadano mas'uuliyadda dalka lagu dhisaayo inaan annagu aqbalno dalkan dumay annaga inay mas'uuliyad naga saaran tahay qof walba Soomaaliyeed oo fursad u helay inuu halkan yimaado wax ku barto waa inaad ogaataa inaadan matalayn gobol ama qabiil laakiin aad matalayso qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum.